madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane abdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo miilungo ee teendhada afasiyoon ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka maysugu qayb galay shirandhahay golaha wadatashiga qaran iyo danjiryaalka Soomaaliya aan fadhi beela caalamka kulanka uu isugu doomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble iyo saacado uu soo socday danjiryaalka beela caalamka aan fadhi Soomaaliya iyo golo wadatashiga qaran mayon ku aransadana geedi socodka doorashooyinka dalka iyadoo saddex qodob oo muhiim ah madaxda iyo waliba beesha caalamka iyo falaqeeyeen golaha wadatashiga qaran iyo beesha caalamka mayo codsadeen intii dardar geliyeen biyo ka dhaqaalagii iyo ka talagaleen qabsoomowga doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba ilaalinta qoondada haweenka iyo waliba sidii lan amba qaada lahay sidii dalka doorasho wada ogolayeen ku dhigi lahaaytay saaxiibada beela caalamka ee ku galay shirkama iyo bogaadiyana madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Koonfur Galbeed oo dadajiyay doorashada xubno aqalka sare baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyagoo madaxda dowlad goboleedyada kala ku codsaday intii dardar geliyeen dhamaystirka xubno aqalka sare mayna bogaadiyana madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ilaaliya qoondada haweenka baarlamaanka aqalka sare iyo kala hayeen mayna iyo xuseena intii la sii dardar gelisay lan ilaaliya lahay qoondada haweenka iyo kaleey xubno lamada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim Maclim afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo warbaahintan akhri qodobada madaxda iyo wada hadleen waxa maanta shir isugu yimid golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed oo uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kana kooban madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana kulan ay la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay maanta ballansanaayeen waxa ugu horeyn diiradda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulanka furay uu saaray ahamiyadda ay leedahay kulankan iyo sida ay muhiim u tahay in beesha caalamku ay qayb ka qaadato hirgelinta doorashada marka ay timaado arrimaha amniga waxa uu ku adkeeyay in ciidamada AMISOM ay qayb libaax leh ka qaataan la dagaalanka argagixisada iyo carqaladaha ay ku doonayaan in ay doorashada ku carqaladeeyaan waxaana uu sheegay in xilligan ay muhiim tahay in dhammaan dowlad goboleedyada iyo ciidamada amniga iyo AMISOM ay iska kaashadaan la dagaalanka al-shabaab waxa dhanka kale uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo hirgelinta doorashooyinka waxa uu sheegay in ay dhaqaale la'aanteed aanan waxba la wadi karin waxa uu sheegay qayb ka mid ah dhaqaalihii ay ballan qaadeen bulshada caalamku laakiin in badan dhaqaalahaasi ka mid ay dhiman tahay loona baahan yahay in doorashadaasi si ay u qabsoonto xilligeedii ay laga maarmaan tahay in bulshada caalamku ay ku yaboohaan lacag si doorashadaasi loo hirgeliyo taasoo haddii aan la helin ay caqabad weyn ku imaan karto hirgelintii doorashada sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay arrimaha u qabsoomay doorashada iyo horumarka laga gaaray waxa uu ka hadlay arrimaha gobolka Gadood iyo arrinta dib u heshiisiinteeda oo meel fiican maraysa waxa uu ka hadlay arrinta gobolka Hiiraan oo uu sheegay inuu isaga shakhsiyan maaragtay arrintaas u istaagi doono waxa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in ay laga maarmaan tahay in doorashadan ay ku dhacdaa si waqtigeedii ah wuxuu sheegay dhinacyada kala duwan inay la hadleen gudiyada doorashooyinka inay la fariisteen midowga musharaxiinta uu filayo kulamadaasna inay sii socon doonaan wax weyn ay ka soo bixi doonaan waxa uu sheegay in dhinaca haweenka qoondadooda markay timaadana dhammaan madaxweynayaashii sidoo kale meesha ka hadlay iyo isagaba waxay adkeeyeen in ay qoondada xil iska saareen magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo ku sugan yihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo kulamisho duwan iyo laweel dhadaayana saaxiibada Soomaaliya midowga musharaxiinta ururada haweenka iyo dhammaan dadka quseeya arrimo siyaasadda dalka mayna ku wada hadlayna sidii la dardar gelin lahaa geedi socodka doorashooyinka Faysal Maxamed Isa TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed afasiyooni magaalada muqdisho